haweenaydu waxay gashay musqusha iyadoo iska yeelaysa inay ilowday inay albaabka xirto xataa si ula kac ah ayay boorsadeeda meel muuqata u dhigtay sababtoo ah dabin ayay u dhignaysay haweenayda xun in yar kadib haweenaydii xumayd si qarsoodi ah ayay u gashay qolkeeda waxay faraqsiisay faraantiga ay xaday oo ay boorsada haweenayda gelisay dabadeedna iyadoo ku faraxsan ayay baxday laakiin qorshaheeda hore ayaa la fahmay markay haweenaydu ka soo baxday musqusha waxay boorsada ka heshay faraanti dheeri ah si degan ayay u diyaar garowday inay qorshaha ku soo celiso haweenayda xun oo ay ku ciqaabto sida ay u mudan tahay markii ay hoolka xafladda timid waxay si ula kac ah ugu dhawaatay haweenaydii xumayd iyadoo koob khamri sidata waxay iska dhigtay inay si lama filaan ah u dhacday oo khamriga ugu daadatay dharka haweenayda xun fursaddaas ayay ka faa'iidaysatay si ay faraantiga ugu qariso boorsada haweenayda xun haweenaydii xumayd way caroon rabtay laakiin waxay isxasuusisay qorshaheeda markaasay iska aamustay markaas ayaa gabadhii maalqabeenka ahayd timid iyadoo dad wata oo goobta hareeraysay waxay ku eedaysay haweenayda inay iyadu tahay tuugii faraantiga ka xaday haweenayduna si degan ayay u tiri waxaa jira isfaham la'aan xitaa faraantigan hore uma arag laakiin gabadhii maalqabeenka ahayd waxay sheegtay inay baaritaan samaysay oo wakhtigaas qofka keliya ee goobta joogay ay ahayd haweenaydaas sidaas darteed iyada ayay u aragtaa tuuga markay hadalkeeda dhammaysay ayay haweenaydii xumayd fursad u aragtay oo ku bilowday inay sii huriso arrinta dadka u tusaysa in haweenaydan ay tahay mid wax xadda markii martidu maqleen in faraantiga lumay uu yahay hanti qoys oo aad u qaalisan waxay u maleeyeen in haweenaydu tahay qof aan waxba ka xishoonayn oo wax walba xadi karta haweenaydii xun ayaa ku tiri haweenayda faraantiga iska dhiib bal laga yaabee in gabadha maalqabeenka ay ku cafiso laakiin haweenaydu weli way adkaysatay oo tiri iyadu wax ma xadin qaar ka mid ah martida ayaa markaas dalbaday in boorsadeeda la baaro haweenayduna waxay si degdeg ah u qabsatay boorsada taasoo dadka u muuqatay inay qarinayso caddayn waxay isku dayeen inay boorsada ka furaan balse way diiday taasoo dadka ku qancisay in ay dembi leedahay markuu amray gabadha maalqabeenka ahi haweenayda waa la qabtay markii boorsadeeda la baaray wax faraanti ah lagama helin gabadhii maalqabeenka ahaydna way yaabtay haweenayduna waxay markiiba ku dhaleecaysay inay muujinayso anshax la'aan laakiin gabadhii maalqabeenka ahayd iyada oo doonaysa inay wejigeeda badbaadsato waxay ku andacotay in haweenayda si jir ahaan loo baadho xilligaas ayaa adeerkeed oo ah ninka ugu taajirsan halkaas yimid wuxuu dadka ka joojiyey falkaas asagoo canaantay gabadhiisa markaas ayuu weydiiyey haweenayda waxa dhacay haweenaydii xumayd markaas ayay ogaatay in haweenaydu ay garanayso ninka ugu taajirsan ninka maalqabeenka ah wuxuu ka raaligeliyey haweenayda waxa gabadhiisu samaysay haweenayduna waxay tiri way fahmi kartaa dareenka gabadha islamarkaana waxay caddaysay inuusan faraantigu iyada ku jirin si loo helo faraantiga waxay tiri waxaa fiican in qof walba si siman loo baaro haddii uusan ku jirin boorsadeeda markaas qof kale baa wadanaya hadday dadku oggolaadaan in la baaro tuuguna waa soo bixi doonaa markii hore qofna ma oggolaan ilaa ninka taajirka ah uu ku wargeliyey inay maalin ka xun tahay oo uu qof walba ka bixi doono dhibkaas markaas ayay dadku oggolaadeen ilaalada markay baareen ma aysan helin faraantiga laakiin hal qof ayay dhaafeen haweenaydii xumayd haweenaydu markay ka digtay arrintaas haweenaydii xumayd ayaa fahamtay inay dabin ku dhacday ka hor intaanay boorsadeeda furan ilaalada ayaa yimid si ay u baaraan laakiin iyadu way diiday gabadha maalqabeenka ahi waxay dareentay in arrin qaldan jirto haweenaydii xumayd waxay sheegtay in boorsadeedu leedahay waxyaabo gaar loo leeyahay oo aan qof loo muujin karin laakiin dadka oo dhan ayaa ku dhaleeceeyey haddii qof walba la baadhay adiguna waad isdhiibi markaas ayay dadku garteen in faraantigu iyada uun yahay gabadhii maalqabeenka ahayd waxay tiri iyada ayaa boorsada furi doonta laakiin haweenaydii xun weli way diidanayd waxayna ku dooday inaysan xitaa goobta joogin markuu faraantigu lumaayey markaas ayay gabadhii maalqabeenka ahayd ku adkaysatay waxay noqotay tuugii dhabta ahaa ninka maalqabeenka ah ayaa u yimid wuxuuna ku yidhi faraantigu waa hanti qoys oo aad u qiimo badan fadlan iska baari laakiin markay weli diiday wuxuu amray in xoog lagu baadho intii ay arrintu socotay wiil maalqabeen ah ayaa yimid haweenaydii xun ayaa boorsadeeda qabsatay oo ku oroday wiilka si ay uga cabato iyadoo leh iyadaa la been abuuray wiilkii ayaa markiiba doonay inuu difaaco markuu weydiiyey yaa tuuga ah haweenaydii xumayd waxay ku tiri haweenaydaas ayaa tuug ah laakiin waxa ayan ogeyn in wiilkaasi haweenayda aqoon u leeyahay haweenayduna waxay weydiisay wiilka sababta uu u yimid ma wuxuu u yimid inuu difaaco haweenayda xun gabadha maalqabeenka ah ayaa markaas u sharaxday arrintii oo dhan wiilkii markaas ayuu fahmay waxa dhacay markuu arkay haweenaydii xun oo weli isku difaacayso wuxuu soo jeediyey in iyadana la baadho haweenaydii xumayd markaas ayay gebi ahaanba naxdin ku dhacday